galab wanaagsan waxaan ku sugannahay degmada Balcad waxaan marti ugu nahay gudoomiye Qaasin Cali Nuur oo aad aragtaan gadaasheeda taagan mudane gudoomiye farxad ay noo tahay annagoo ka nimid all the way Canada inaan ciyaarahan maanta kala soo qayb galno runtii ciyaarahan arkaysaan sidii qafkii hore u sheegay waa 16 koox oo ah iskuulada ka dhisan magaalada Balcad waxaana suura galiyay gudoomiyaha degmada mudane gudoomiye aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqaynaa hawsha quruxda badan ee aad u hayso degmadan Balcad fursadan qaaliga aan oo ka faa'iideysanahay waxaan rabaa inaan ayagana u mahadceliyo gobolka Banaadir oo runtii naga qayb qaatay markii aan keenay caruurtii Soomaaliyeed aan ka keenay Canada ayagana aan marti ugu ahayn dhamaantood anoo soo koobay halkaas mar kale mudane gudoomiye mahadsanid hawsha aad u haysid ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto farxaday noo tahay maanta in aan degmada Balcad kala soo qayb galno tartanka iskuulaadka uu qaban qaabiyay gudoomiyaha Aweys Kabeela gudoomiyaha isboortiga degmada Balcad iyo gudoomiyihiisa degmada waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan leh oo aad noogu casuunteen tartanka iskuulaadka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay waa mahadsantihiin casuumadii hore iyo tan galabtaba waxaan leenahay isboortis horumar leh degmada Balcad iyo taageerayaasheeda dhammaan waxaan idin leenahay idinkoo isku duuban jiro jooga waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh raxiim gudoomiyaha degmada Balcad walaalkay Qaasin gudoomiyaha ku-xigeenka kubadda cagta gobolka Banaadir gudoomiyaha ku-xigeenka labaad kubadda cagta gobolka Banaadir gudoomiyaha xiriirka taqboolka lajannada heer qaran kubadda cagta Axmed Cali Culso walaalkay Nuuray dhammaan madaxda mas'uuliyiinta iyo macallimiinta mas'uulka ah ciyaartooyda ka timid dalka wadanka keentay oo wali nala joogaan farxad goyn u tahay maanta inaan goobjoog u ahaano casuumadoona casuumay gudoomiyaha degmada Balcad walaalkay Qaasin waxaan leenahay aad u maasanta gudoomiye mar kale waxa sharaf noo ah inaan maanta goobjoog u ahaano furitaankii tartankii kubadda cagta iskuulada degmada Balcad xaqiiqadii waa shaqo aad u qurux badan waxaan kaga mahadcelinaa hawshaas loogu mahadcelinaa aad u soo qaban qaabiyay walaalkeen Aweys Kabeela gudoomiyaha isboortiga Balcad oo ah shakhsi isboortiga wax badan ka shaqeeyay wax badan fahansan horumar gaarsiiyay isboortiga Balcad asagoo garab iyo gaashaan ka helaya gudoomiyaha degmada Balcad Qaasin iyo dhammaan kasolka degmada Balcad waxaan leenahay markaa sharaf noo tahay galabta ciyaaraha meeshan ka furno goobjoog u ahaano anagoo matalayno kubadda cagta gobolka Banaadir iyo dhammaan ay goobjoogayeen xiriirka taqboolka iyo lajannada qaranka waxaan leenahay aad u maasanta gudoomiyaha Qaasin farxadna taamaatay aan wada joogno insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa furitaanka saanka inoo imaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa tartanka inuu nabad ku bilowdo nabad ku dhamaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh raxiim waxaan maanta aad noo soo dhaweeyay gudoomiyaha Qaasim degmada Balcad haliyay aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno tartankan furitaankiisa 16 iskuul oo Balcad deegaanadeeda ka kooban waa wax aad u farax badan oo aad mataqaanaa xusuus horna soo gelinayo xusuus hore taariikhi Balcad waa meel taariikh isboortiga aad ugu fiican waxaan idin leeyahay guuleysta gudoomiyaha Qaasim guuleyso adiga iyo kooxdaada hambali waa maasantiin wallaahi barakaatu maanta waxaan ku suganahay degmada Balcad waxaan casuumay gudoomiye Qaasim Cali Nuur waxaan leenahay hambalyo wuxuu nagu casuumay 16 iskuul oo kubadda cagta ah anoo ku hadlaayo magacayga iyo magaca dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qurbo joogta anoo gudoomiyaha Somali Federation Taqbol oo u helinayaan gudoomiyaha gobolka kubadda cagta Haroon Saacid iyo dhammaan qurbo joogta Canada Nuuray iyo baby iyo Bashiir iyo ninkii la yiraahdo Abdi Kuus ilaahay caafimaadna wuu noo siiyay wuxuu ahay isku dubaridkii maaragtay 17 jiradii ma sha Allah gudoomiye Qaasin xafladii iyo soo dhaweyntaadii aad ugu mahadsantahay muddo Balcad waxa ugu dambeysay 30 iyo 7 sano meelahaas ay ugu dambeysay Balcad maanta waxay tahay fursad qaali ah tahay ma sha Allah waxa keenay miiskaas oo lagu ciyaarayo ma sha Allah taqboolaa la yiraahdaa waa ciyaar ku cusub Soomaaliya ma sha Allah waxa kale oo salaama TV-yada dhamaantood in kastoo kala qaadqaadeen ma sha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh